بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد عشر كينا وحوك سابسن يهي برشادة شروط الصلاة صلاة شروط دي أيوك سابسن يهي شروط الصلاة هذه اسكسو قدرو مدانا يدا شروط صلاة شروط دي waayahay salaada maxaa yeelay laa tasixu ansaxi mayso dheh laa tasixu salaada ansaxi mayso ilaa bitisati shuruudin sagaal shardi ilaa la helo hiya waxay kala tahay marka waa la kala sheegaya shuruudii baa la sheegaya waxay tahay nambarka koowaad waxay tahay nambarka koowaad alislaamu waa inuu qof islaama yahay weye waa qof muslima waa inuu yahay nambarka labaad alcaqlu waa inuu aqli leeyahay oo qof wax garanayo oo aqligiis joogo waa inuu yahay ayaa la shardiyaa majnuunkii oo kale iyo salaada ka ansixi mayso waayahay kan koowaad maxaan dhahnay waa inuu islaam yahay kan labaad waa inuu aqli leeyahay nambarka saddexaadna at-tamyiizu wax kala soocid baa la shardiyaa inuu wax kala sooci karo muxuu kala soociyaa waa qof wax kala garanayo maalan tusaale jihooyinku waa inuu kala garanayo dhinaca qiblada jirto oo kale iyo waxyaabahaas inuu kala garan karo oo wax kala sooci karo qof maaragtay saqiira waa inuusan ahayn oo kale wey nambarka afaraad araabicu weeyaane addahaaratu dahaara la sharday waa inuu daahir ka yahay min alxadathi xadaska waa inuu daahir ka yahay oo xadaska muxuu yahay waxa weeye waysu qabay hadday aariyi ka timaado kale oo gadaal neef ay ka timaado waa ka buraysaa hadduu soo haajiguto way ka buraysaa sidaa wey waa inuu daahir yahay wey xadadka marka labuu noqdaa midna wuxuu buriyaa weysada midna maxaan ku yidhaahdaa quweysuu waajibiyaa midna weysuu waajibiyaa xadasul asqar iyo xadasul akbar la kala yidhaahdaahe maraan sharaxi doonaa laakiin adigu dahaaro ku gaabso waa inuu daahir yahay xadath waa inuu daahir ka yahay xadas maxaa la yidhaahdaa wax alla wixii maxaan ku yidhahdaa ama weysada buriya ama quweys waajibiya weeye waayahay nambarka shanaad waxa weeye isaalatu najaasati najaasada waa inuu iska zuuliyaa oo hadday muuqatana iska dhaqaa jirkiis hadday ku taallo dharkiis hadday ku taallo meelaha uu ku tukunayay kulli uu nadiif yahay wey iska zuuliyo najaasadu sidaasay wey nambarka lixaadna waxaa la yidhaahdaa satrul cawrati cawradiisa waa inay asturun tahay wey cawradiisa waa inay asturuntahay cawro maxaa la yidhaahdaa qofka intuu qarsado wey rag hadduu yahay wiil hadduu yahay rag iyo wiil waa midkiiya ragna waa qofka qangaarka weyn weye marka cawradooda waxa weeye jilibka iyo xudunta inta u dhaxaysa wey inta ay qaryaan ay waajib tahay ama salaata ku jiraan ama aysan ku jirin laakiin waxa weeye de waa laga fiican yahay korkiis inuu bannaan yahay waa xishoodka haggiis waa loo asturaa korka dhan marka cawratu rajuli ragga cawradiisa waxaa la yidhahdaa maa bayna surati warugbati jilbaha iyo xudunta inta u dhaxaysa wey gabadhana ama maamada ama gabardheh waa isla midee jirkeedoo dhan waa cawro marka laga reebo wejiga iyo calaaasha labada gacmood alaalaheed marka laga reebo jirkeedoo dhan waa cawr waayahay nambarka toddobaad waxa weeye nambarka toddobaad dukhuulul waqti waqtiga waa inuu galaa salaada uu tukunaayo waqtigeeda waa inuu galaa salaadan waqtigeeda galin ka ansixi maydo
sidaasay wey waayahay nambarka sideedaad istiqbaalu lqiblati qiblada waa inuu u jeedsadaa hadduuna qiblada u jeedsanin ka ansixi mayso waayahay nambarka sagaalaad waxa weeye anniyatu weeye waa inuu niyeystaa salaada xadiiskiina muxuu ahaa inama alacmaalu binniyaati maalan tusaale salaada uu niyoonayo waxa weeye ma duhura ma casra midda markaas la joogo uu tukanayo ayuu niyeysanayaa waayahay marka insha allahu tacaala casharkan aan si fiican u baranno wallahu subxaanahu wa tacaala aclam wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu